kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararka dunida islaamka iyo caalamka intiisa kale waxaa idii waramaya anigoo Axmed Doola. Qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib oo asqaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa. Dowladda Itoobiyana waxay madaxa Ha'yadda Caafimaadka Adduunka ku eedeysay inuu taageero siinayo jabhadda dagaalka kula jirta dowladda ee TPLF. Australia waxay markii u horeysay qiratay danbiyadii dagaal ee ciidamadeedu ka geysteen Afghanistan. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal. Mar kale kulanti wacan aynu ku bilowna xabaalaha baqiic ee waqooyiga magaalada Hargeysa waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay Allah u naxariiste labada marxuun ee Cumar Carte Qaalib ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo Suldaan Xandulle. aaska labadani marxuun waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo ku-xigeenkiisa, gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland, ehelada iyo qaraabada labadani marxuun, mas'uuliyiin iyo shacbi weyne tiro badan. ugu horeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ayaa ka waramay taariikhda labadani marxuun iyagoona Alle uga bariyay inuu janooyinkiisa ugu deeqo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. waxaan joognaa maanta geerida iyo aaska laba marxuun oo dalkan iyo dadkanba wax badan soo qotay. Allah u naxariisto ka hore waa Cumar Carte Qaalib. Cumar Carte Qaalib qof waloo af Soomaali ku hadlaa wuu garanaya. dowlado badan iyo aqoonyahan badan oo caalamka wuu garanaya taariikhdiisu leeyahay dhowr qodob oo kooban. dad badan oo waxbaray ayaa dalkan wax badan ka talada magac ku yeeshay. markii uu ahaa assistant DC 1960 February markii doorashada la helay ee la galayay shirkii la gali doono isku dalkana wuxuu ahaa aqoonyahankii ku tariyay waar dib ha loo dhigo raacsanaa ee labada xisbi u kala dab qaaday. markii uu shaqeeyay oo magaalada Hargeysa ka ahaa DC 1960 wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dib jir gudaha loo sameeyo ee sekretariga dib jir la sameeyay. markii Moscow loo magacaabay oo sarkaalka hoose xogayaha ka ahaa qaladii Moscow ee uu qayb ka ahaa safiirkana wuxuu ahaa dadkii diyaariyay daraafkii Cabdirashiid Dooriye ciidamada ay la siiyaan. kolkii dambena wuxuu adisano safiir ka ahaa safiirkii adisano in badan ku raagay oo ahayd markaa colaadda ugu weyn halkii dhex taagay Soomaaliya iyo Soomaali oo dhan waxa soo ku hadlo oo dhan iyo Itoobiya. Cumar Carte wuxuu ahaa ninkii jabiyay bartakoolkii xabashada boqortooyada ee marka gaal iyo islaam iyo carabba ay u tagaan boqor Xayla Salaase ay madaxooda u dhigtay ninkii inuu ahaa diinta yaanay ogolay ee bartakoolkii Xayla Salaase ee afarta sano soo jabiyay. markii uu safaaradda ka yimid laba goor buu tartan galay wuxuu ahaa ninkii sameeyay xisbigii ubax afariyadkii. waxaan maanta halkan joognaa aaskii marxuum Cumar Carte Qaalib weyn ilaahay weyne oo qaranka Somaliland ka baxay iyo marxuum Suldaan Indhacase. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ilaahay naxariis janno ka waraabiyo qaranka Somaliland iyo ehelka ka baxeenna ilaahay sabir iimaan ka siiyo. taariikhdooda waxa ka warramay madaxweynaha ka warramay anigu waxaan kaga gudbinayaa oo magaceeda ku hadlayo inaan ka tacsiideeyo qaranka Somaliland iyo qoysaska ka baxeenba labada marxuun qiimaha weyn nagu lahaa. Maxamed Cumar Carte Qaalib wiilka uu dhalay marxuun Cumar Carte Qaalib iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa iyaguna labadaasi marxuun Alle uga bariyay inuu janooyinkiisa ugu deeqo. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagana ha u naxariisto. annagana runtii aabo wanaagsan walaal wanaagsan wuxuu ahaa baari wuxuu ahaa zawj wanaagsan wuxuu ahaa saaxiib wanaagsan wuxuu ahaa macallin wanaagsan tarbiyad wanaagsan leh ayuu ahaa oo dadka ay u wada siman yihiin. marka annagana waxaa naga baxay qofka caynkaasa naga baxay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa
inuu qalbigayga adkeeyo dadka Soomaalidana meel kasta joogaan oo soo wada ducaynayeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala baadina allah idinku ilaahay wayna ilaahay raajicuun waxaan tacsidiisii joognaa aaskiisii joognaa cumar cabdi qaalib iyo sultaan maxamuud xandulle aaskoodii baynu joognaa taariikhda waa laga sheekeeyey oo dib loogu noqon maayo waa intaa madaxweynuhu sheegay taariikhdiisa iyo in ka badanba wuu leeyahay cumar cabdi qaalib waxaa lagu xusuusanayaa waxa weeye wuxuu ahaa halyey Soomaaliya u dhashay ilaa maalinta macallinka ilaa marka wasiirka ahaa wuxuu ahaa nin haybad leh gaalo iyo islaam qofkii u tagaaba ka haybadiista taliyaha ciidamada xoogga dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay madaxa Ha'yadda Caafimaadka Adduunka inuu wado tallaabooyin uu ku garab siinayo TPLF xilli ciidamada dawladdu ay dagaal kula jiraan wuxuuna ku eedeeyay generaalku madaxa Ha'yadda Caafimaadka inuu wado isku day kasta oo uu ku taageerayo TPLF isla markaana uu ka caawinayo sidii ay hub ku heli lahaayeen madaxa haatan ee Ha'yadda WHO wuxuu ahaan jiray wasiirkii hore ee caafimaadka Itoobiya xilligii maamulkii TPLF waana nin caan ah oo ka tirsan qoomiyadda Tigreega ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu sheegay in howlgalka militari ee ka socda Tigreega looga gal leeyahay in kala dambeyntii iyo sharciyadii dib loogu soo celiyo gobolkaasi hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa waxay sheegeen in kumanaan qof oo shacab ah ay weli ka soo qaxayaan dagaalada ka taagan gobolka Tigray kuwaasi oo gaaraya dhinaca Suudaan wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Suudaan ayaa sheegay inta badan qoysaska soo qaxay ay ka soo lugeeyeen deegaanada Tigray maadaama ay halis tahay inay sii joogaan halkaasi dawladda Itoobiya waxay beenisay inay bartilmaameedsanayso dad shacab ah xilli ay wada howlgal militari oo ka dhan ah TPLF dawladda dhexe waxay sheegtay in ciidamadeedu ay ku siqayaan magaalada caasimadda ee Makela inkastoo ay adag tahay in la xaqiijiyo wararka ka soo baxaya gobolka maadaama uu goodoomay xiriirka isgaarsiintu in ka badan 30,000 oo qof ayaa ka qaxay dagaalka ka socda gobolka Tigray kuwaasi oo haatan soo gaaray Suudaan militariga Australia ayaa shaaciyay natiijada baaritaan 4 sano socday oo lagu raad joogay danbiyada lagu eedeeyay commandosta dalkaasi inay ka geysteen wadanka Afghanistan baaritaankan ayaa waxa la bilaabay sanadkii 2016 markii saxaafadda iyo waliba askar ka soo jeeda dalkaasi ay banaanka keeneen dambiyadani ay sida qarsoodiga ah u geysan jireen ciidamada Australia ee ka howlgala Afghanistan dambiyada ay geystaan ayaa lagu xaqiijiyay ugu yaraan 39 qof oo ay askartu si jees u dileen waxaana kamid ah maxaabiis la qabtay beeraley iyo waliba caruur taliyaha ciidamada Australia General Angus Campbell oo warbixin hordhaca u akhriyay saxaafadda ayaa sheegay inay qirayaan dambiyadani dhacay oo uu sheegay inay si sharci darraha askartoodu dil ugu geysteen dad shacab ah isagoo sheegay inay raaligelin ka siin doonaan dawladda Afghanistan iyo ehelada dadka la dilay dambiyadani ayaa si gaar ah loogu soo oogay 25 askari oo commandos Australian ah kuwaas oo la sheegay in maxkamad la soo taagi doono falalkani ay geysteen ciidamadan ayaa waxa kamid ah inay askarta cusub ku dhiirigeliyaan ama ku khasbaan dilka qof shacab ah oo aan ku jirin dagaal si ay tababar uga dhigtaan qaabka dhiig daadinta ama wax loo dilo waxayna dilalkani dhaceen intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa 2013 sida lagu sheegay xogta militarigu shaaciyeen sida sharciga dalka Australia qorayo baaritaankani ayaa lagu wareejin doonaa xeer ilaaliyaha khaaska ah iyo booliska ka hor inta aan cadaaladda la horgeyn askartaasi dambiyada galay oo qaarkood weli xilalka hayaan halka kuwa kalena ay hore uga baxeen ciidamada qodobkaasi waxa uu guniya gabagaba u ahaa wararkan idinka haynay dunida islaamka iyo caalamka intiisa kale anigoo Axmed Doola ayaa idin waramayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo